dagaalka Israa'iil iyo Xamaas si toos ah, Maraykanku wuxuu soo diray markab labaad oo diyaarad si uu uga hortago falalka cadowtinimo ee ka dhanka ah Israa'iil, weerar dhulka ah oo lagu qaaday Gaza. qiyaastii 3,000 oo qof ayaa ku soo qulqulay barxadda isbitaalka weyn ee magaalada Gaza, iyagoo raadinaya qaxooti ka hor weerarka dhulka ee Israa'iil ee la filayo, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Maxamed Abu Salim, oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka Shifa, oo ah kan ugu weyn marinka Gaza, ayaa xaqiijiyey in dad aad u badan ay ku soo xoomeen dhismaha iyo barxadda bannaanka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dirmadad Abbas, oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka, ayaa yidhi: dadku waxay u malaynayaan in tani ay tahay meesha keliya ee nabdoon kadib markii guryahooda la burburiyey oo lagu qasbay inay cararaan. magaalada Gaza waa goob cabsi leh oo burbur ah. Milatariga Israa'iil ayaa ku amray ku dhowaad kala bar dadka reer Gaza oo in ka badan 2 milyan oo ay ku jiraan dhammaan magaalada Gaza in ay isaga guuraan inta ay isku diyaarinayso in ay u dirto ciidamo dhulka ah. kooxaha gargaarka ayaa ka digay qaxaasi inuu sababi karo masiibo bini'aadantinimo. kubad dabdamis ah ayaa ka qaraxday duqaymaha Israa'iil ee waqooyiga marinka Gaza Sabtidii. ciidamada Israa'iil ee Buma ayaa Sabtidii ku dhaqaaqay tiir u dhow xadka Gaza ee koonfurta Israa'iil. haweeney kormeeraysa burburka gurigeeda kadib markii Israa'iil ay duqaysay xerada Rafah ee koonfurta marinka Gaza. nin Falastiini ah ayaa ka gudbay waddo kadib markii uu cunto ka helay qoyskiisa magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza. tiir ka mid ah gawaarida gaashaaman ee Israa'iil oo u dhow xadka Gaza ee koonfurta Israa'iil. dadka ayaa eegaya burburka gurigooda kadib Maraykanka ayaa u diraya koox labaad oo diyaarad siday bariga Mediterranean-ka. xogayaha difaaca Maraykanka ayaa xaqiijiyey, isagoo sheegay inay tahay in la joojiyo ficilada cadowtinimo ee ka dhanka ah Israa'iil ama dadaal kasta oo lagu ballaarinayo dagaalka kadib weerarka Xamaas. Lloyd Austin ayaa Sabtidii sheegay in soo diritaanku uu muujinayo sida ay Washington uga go'an tahay amniga Israa'iil iyo go'aankeenna ah inaan ka hortagno dawlad kasta ama mid aan dawli ahayn oo doonaya inuu dagaalkan sii kordhiyo. markabka Eisenhower iyo maraakiibta dagaalka ee xiriirka la leh ayaa ku biiri doona koox kale oo sidayaal horay loo geeyey gobolka kadib weerarkii Israa'iil lagu qaaday toddobaad ka hor iyo jawaabta socota ee Israa'iil. Maraykanka ayaa saanad milatari u diray Israa'iil, wuxuuna uga digay dalalka kale inay sii huriyaan colaadda. ururka caafimaadka adduunka ayaa cambaareeyey amarka Israa'iil ee ah in laga saaro labo isbitaal oo ku yaala waqooyiga Gaza, kuwaas oo lagu daweynayo in ka badan 2,000 oo bukaan ah. u guurista bukaanno badan oo u soo guuraya koonfurta Gaza, halkaas oo xarumaha caafimaadku ay horayba ugu shaqaynayeen awoodda ugu badan oo aan awoodin inay nuugaan kor u kaca tirada bukaannada, waxay la mid noqon kartaa xukun dil ah, ayuu yidhi ururka. Iiraan ayaa ka digtay cawaaqibta fog haddii aan dembiyada dagaal iyo xasuuqa Israa'iil si degdeg ah loo joojin. Sabtidii, ergada joogtada ah ee Iiraan ee Qaramada Midoobay waxay ku dartay mas'uuliyadda ay saaran tahay Qaramada Midoobay, Golaha Ammaanka iyo dowlad goboleedyada oo u hoggaansamaya golaha ilaa dhammaadka. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan, Hossein Amir Abdullahian, ayaa magaalada Doha ee dalka Qatar kula kulmay hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniyeh. Xamaas ayaa sheegtay in labadoodu ay ku heshiiyeen in la sii wado iskaashiga si loo gaaro yoolalka Xamaas. horaantii, Haniyeh ayaa khudbad uu ka jeediyey telefishinka ku sheegay ma jiri doono wax u haajiraan Gaza oo Masar kadib amarkii Israa'iil ee ah in la daadgureeyo iyo in Masar ay soo dhaweynayso dadka Falastiiniyiinta, laakiin maaha mid ku salaysan tahriib ama qax. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa si gooni ah Sabtidii ula hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas. xafiiska Netanyahu ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha uu u sheegay Biden in midnimo iyo go'aan loo baahan yahay si loo gaaro yoolka Israa'iil ee ah in laga adkaado Xamaas. dhanka kale, xafiiska Cabbaas ayaa sheegay in Cabbaas uu u sheegay Biden in uu diiday barakicinta Falastiiniyiinta ee Gaza iyadoo kumanaan kun ay ka qaxeen duqaymaha cirka ee Israa'iil. Ruushka ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ka codsaday in Isniinta u codeeyaan qaraar qabyo ah oo ku saabsan colaadda Israa'iil iyo Xamaas oo ku baaqaysa xabad joojin bini'aadanimo, islamarkaana cambaaraynaysa rabshadaha ka dhanka ah dadka rayidka ah iyo dhammaan falalka argagixisada. wasaaradda difaaca ee Suuriya ayaa xaqiijisay beegsiga Israa'iil ee gegida dayuuradaha ee Xalab habeenkii Sabtida, taas oo meesha ka saartay
cadowga Israa'iil ayaa weerar cirka ah ka fuliyey jihada badda Mediterranean-ka galbeedka Latakia iyaga oo beegsaday garoonka caalamiga ah ee Aleppo taas oo keentay burbur qalab ah oo soo gaadhay madaarka oo uu shaqadii ka maqnaa. Reuters ayaa sheegtay militariga Israa'iil ayaa Sabtidii sheegay in ay dib ugu soo rideen goobo Suuriya ka tirsan oo 2 gantaal laga soo riday dhanka dhulka Israa'iil ayna ku dhaceen goobo bannaan. militarigu waxaa kale oo ay sheegeen in ay rideen qof dhexda u ahaa bartilmaameed laga shakisan yahay kaas oo ka soo gudbay dhulka Israa'iil ee Lubnaan balse ma aysan bixin wax faahfaahin ah oo dheeraad ah. shir madaxeedka madaxda midowga Yurub toddobaadka soo socda si ay uga wada hadlaan dagaalka ka socda Israa'iil iyo Xamaas. waa muhiimadda ugu weyn in golaha Yurub si waafaqsan heshiisyada iyo qiyamkayaga uu dejiyo mowqifkeena guud oo uu dejiyo tallaabo cad oo midaysan oo ka turjumaysa kakanaanta xaaladda soo socota, ayuu yidhi Charles Michel, madaxweynaha midowga Yurub. golaha Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa ugu baaqday maamulka Israa'iil inay muujiyaan bini'aadantinimada. bayaan ay soo saartay Sabtidii, MSF waxa ay ku cambaaraysay duqaymaha Israa'iil ee marinka Gaza is-celin laan muddo 7 ah. qiiq ayaa kor u kacay dhismayaal intii lagu guda jiray duqayn ay Israa'iil ka geysatay magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza Sabtidii. Israa'iil waxay qiratay khaladaadka sirdoonku inay ku guuldareysteen inay saadaaliyaan weeraradii Xamaas ee toddobaadkii hore. waa qaladkayga waxayna ka turjumaysaa khaladaadka dhammaan kuwa samaynaya qiimaynta caqliga. la taliyaha amniga qaranka Israa'iil Tzachi Hanegbi ayaa ku sheegay shir jaraa'id. militariga Israa'iil ayaa Sabtidii ku dhawaaqay in ciidamadoodu ay isu diyaarinayaan fulinta qorshayaal badan oo weerar ah oo howlgal ah. waxa ay sidoo kale ku dhawaaqday in ciidamadeeda la geeyey guud ahaan Israa'iil ayna isku diyaarinayaan marxaladaha xiga iyadoo xoogga la saarayo howlgallada dhulka ee muhiimka ah. Lubnaan ayaa Sabtidii sheegtay in Israa'iil ay qaaday weerar lagu hoobtay Jimcihii shalay oo ay ku dishay wariye u shaqaynayay wakaaladda wararka ee Reuters, ayna ku dhaawacmeen 6 wariye oo kale oo ka kala tirsan wakaaladaha France Presse, Reuters iyo Al Jazeera. ciidamada Lubnaan ayaa bayaan ay soo saareen ku yidhi cadowga Israa'iil ayaa soo riday gantaal ku dhacay baabuur rayid ah oo ay lahaayeen koox warbaahineed taasoo keentay dhimashada Issam Abdallah. isku duwaha arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa ka digay in xaaladda bini'aadantinimo ee Gaza ay dhaqso u noqonayso mid aan la sii wadi karin. bayaan uu soo saaray Sabtidii, Griffiths wuxuu ku yidhi xitaa dagaalladu waxay leeyihiin xeerar, waana in xeerarkan la ilaaliyo mar walba iyo dhammaan dhinacyada. rayidka iyo kaabayaasha rayidka oo ay ku jiraan shaqaalaha samafalka iyo hantida waa in la ilaaliyo. guddiga Yurub ayaa ku dhawaaqay inay 3 jibaari doonaan gargaarka bini'aadantinimo ee Gaza. tallaabadan ayaa timid kadib markii midowga Yurub uu la kulmay dhaleecayn ku aadan fariimaha iska soo horjeeda ee uga imaanaya hoggaankooda sare. guddoomiyaha guddiga Ursula von der Leyen ayaa Sabtidii la hadashay xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. guddiga ayaa yidhi